maxay ka wada hadleen madaxweynayaashii hore ee dalka Shariif Sheikh Axmed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodobo sir ah oo aan helnay iyo faahfaahin macluumaadkaasi ku saabsan ayaan rabaa inaan halkan idinkula wadaago soo dhawow muuqaalka si gudbi oo la sii wadaaga asxaabtaada. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada caasimadda Muqdisho Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo labadaba siyaasad ahaan iska soo horjeeday ayaa waqtigan u muuqda in ay isku soo dhawaanayaan kulamo qarsoodi ah oo xalay ilaa iyo shalay ka dhacay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho gaar ahaan guriga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu falanqeeyay dhowr qodob oo xasaasi ah qaarkoodna lid ku ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. warbixintan ayaad ku ogaan doontaa waxaana ila loo qaateen ay inoo xaqiijiyeen in uu dalbaday kulankan madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd Sheikh Shariif Sheikh Axmed kaas oo laga aqbalay ugu dambeyntiina gurigiisa ugu tagay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qodobada ugu waaweyn ayaan rabaa in aan idinla wadaago oo dhinacyadu ay diiradda saareen inkastoo warar hadda soo baxay ay sheegayaan in 3 qodob oo miiska saarnaa laba ka mid ah la isku fahmi waayay. qodobka koowaad ee xalay oo dhan ilaa iyo shalay la falanqeynay waxaa ka mid ah in Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo midkood in la dhiso oo la sameeyo hoggaan adag iyo olole doorasho oo ka duwan kii hore ee dalka ka dhici jiray si ugu dambeyntii meesha looga saaro tiimka uu hogaaminayo madaxweynaha dalka Xasan Sheikh Maxamuud. waxa uu dalbaday Sheikh Shariif Sheikh Axmed in wixii xeelad awood iyo dhaqaale ah la isugu geeyo dhankiisa si uu ugu soo baxo doorashada kale maadaama waqti badan uu ka maqnaa saaxada dhinaca villa Soomaaliya inuu kursigaasi ku fadhiisto laakiin waqtigan uu rajeynayo in uu isaga qabto hoggaanka dalka laakiin Farmaajo oo aad waqtigan u carcar ah rabana in uu mar kale qabto talada dalka si uu wax badan uga bedelo maamulkiisi oo fadeexad iyo eedeyn aad u waaweyn dul hogaanayay ayaa ka biyadiiday dalabka Sheikh Shariif Sheikh Axmed waxayna keentay in qodobkaasi calaamad su'aal saaro lana sheego in gudi loo saari doono si la isugu waafaqo labadaasi xubnood midka la dhisi doono. qodobka kale waxaa ka mid ah in abaabul rabshado wato laga sameeyo magaalada caasimadda Muqdisho dadka shacabka ah la kiciyo oo dibadbaxyo waaweyn laga dhigo agagaarka villa Soomaaliya taalada daljirka Dahsoon ee degmada Boondheere iyo sidoo kale wadada Maka al-Mukarrama laakiin Farmaajo wuxuu sheegay in taasi ay noqon karto ceeb iyo fadeexad siyaasadiisa dul huwanaysa loona arki karo in uu guud ahaanba soo dhaafay wixii bulshada Soomaaliyeed ay ka filayeen ee ah in uusan ku milmin siyaasadaha isdiidan gooni u daaqan uu yahay laakiin qodobkaas uu ka gaabsaday Farmaajo. qodobka saddexaad miiska saarnaa waxaa ka mid ah laakiin la isugu soo dhawaaday in marka doorashada ay soo dhawaato haddii labada dhinac midkood uu u soo dhawaado dhinaca iyo codadka iyo guusha iyo midka kale codka uu ugu shubo si ugu dambeyntii uu u noqdo musharaxa ku guuleysta talada villa Soomaaliya. haddaba tani haddii ay suurto gasho waxay dhabarjab weyn ku noqonaysaa Xasan Sheikh Maxamuud iyo sidoo kale xisbigiisa kuwaas oo mar kale dadka qaarkood ay sheegayaan in ay ku hanweyn yihiin qabashada villa Soomaaliya waxaana taasi beeninaysa haddii labadani xubnood mid ka mid ah uu codka ugu shubo dhinaca guusha ee uu janjeerto. haddaba waxaan isha ku haynaa markasta arrimaha siyaasadda dalka iyo kulamada qarsoodiga ah ee ka dhacaya magaalada caasimadda Muqdisho adiguna waxaad noqonaysaa qofka markasta ugu horeeya ee la socda xogaha muhiimka ah ee xasaasiga ah halka aan rabno in aan markasta ku soo bandhigno.